Khalid wuxuu ka mid yahay dhalinyarada sanadkan ku guuleystay DAD scholarship qaybta wax weeyaan Kenya. Waa maxay barnaamijkan qaybtan DAD aad ku guuleysatay DAD in country in region oo runtii wax malayna sub-Saharaha scholarship-ka oo qaybtan Kenya jaamacadaha Kenya hoos tagarayo maadaama DAD scholarship uu qayb badan u leeyahay. Marka hore soo dhawow bal qaybta ku guuleysatay haddii aad xog yar naga siiso as dhihi kartaa qofka hadduu fursadda inuu ka faa'iideysto maxaa qofka caawin kara qofka waxa caawin karaya marka shuruudaha qofka looga baahan yahay raba inuu barnaamijkan xariisto bal 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 daad tirin karta shuruudaha horta waxa ugu weyn waa walaal hadba dib loo kugu shaqeeyo lacagtaada good masha Allah marka waa isla marwalba oo ku qabaan way marwalba lacagtaada way ku qabaan good assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh saaxiibayaal soo dhawaada hanti meel baa joogtaan ku soo dhawaada Faahiye podcast marwalba waxaan nooga barateen inaan soo gudbino fursadaha caalamka ee dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay ka faa'iideysan karaan maanta waxaan wada joognaa Ustaad Khalid runtii Khalid wuxuu ka mid yahay dhalinyarada sanadkan ku guuleystay DAD scholarship qaybta wax weeyaan Kenya ama hoos tagarayso jaamacadaha runtii wax weeyaan Kenya waxaan ka wada sheekaysan doonaa scholarship-ka DAD runtii process-ku soo maray iyo waxyaabo badan oo ku saabsan scholarship-kan sida lagu heli karo marka soo dhawaada ugu horeyn qaado ku soo dhaweynaya kuna soo dhawo Faahiye podcast bal markuu haddii aad dadka isbarto qaarada kuma wadhawahay aad u maasan tahay Mr. Faahiye magacaygu waxa weeyaan Khalid Maxamed Xasan waxaan u dhashay kuna barbaaray magaalada Hargeysa hayaankayga waxbarashada ku soo qaatay waayadii ugu dambeeyay aan ka shaqeynayay dhinaca construction-ka dhismaha iyo decorationska shaqadeedu intay u badnaydna consultant jaamacadda waxaan ka soo qaatay civil engineering buu ahaa aan ka soo baxay jaamacadda Hargeysa waayadii ugu dambeysayna aan ku shaqeynayay fiilkaas wala waan u jinjeeray dhinacaamahan dambe dhinaca climate change-ka isbedelka cimilada iyo sida wax looga qaban karayo biyaha arrimahaas xoog saarayay intii ugu dambeysay وما سنت خالد مكله هدينا توس ugu galno waa maxay barnaamijkan qaybtan DAD aad ku guuleysatay DAD in country in region oo runtii wax malayna sub-Saharaha scholarship-ka oo qaybtan Kenya jaamacadaha Kenya hoos tagarayo maadaama DAD scholarship uu qayb badan u leeyahay marka hore soo dhawow bal qaybta ku guuleysatay haddii aad xog yar naga siiso horta dadku waxa weeyaan waa adeeg uu bixiyo sameeyo German ugu talagalay academic exchange-ka marka wuxuu sector-ka xoog ka saaray waxa weeyaan cilmi-baarista iyo waxbarashada barnaamijkan waxa ugu horeysay waqtiyadii ugu horeysay la bilaabay waxa ahayd 1960kii oo in hadda waxa ka soo wareegay ilaa iyo 50 sano ayaa looga dabaaldegayay in saameyntiisii ama impact-gii marka laga sameeyay bal DADku muxuu qabtay muxuu ka qabtay Afrika gaar ahaan waa waqtigan qaybtan region-ka laakiin DAD ahaan waxa la sameeyay 1927kii ilaa 23kii meelahaas ayaa barnaamijka asal ahaan la bilaabay laakiin DADka qaybtiisan Afrikada ka shaqeysa waxa la sameeyay 1960kii barnaamijkan DAD in country-gu wuxuu xoog saarayaa waa laba sector oo aad u waaweyn mid waxa weeyaan qaybta teaching-ka oo waliba jaamacadaha public ee Afrikaanka ayuu xoog saaraya oo jaamacadaha xiriirka la sameeyay waxa weeye waa Afrikaan marka hore marka labaadna waxa weeyaan jaamacad dawladeed oo public weey waxa kale oo xoog saaraya dadka u shaqeeya government-ka ama public ka shaqeeya self-ka ayuu xoog saaraya marka labada ayuu aad majorkiisa xoog saaraya dhinaca kalena wuxuu xoog saaraya teaching-ka wax dhigista iyo research-ka ama academic research-ka ama waxbarista waxa laga sameeyo intaas waa u badan marka tirahan jaamacadu waxa weeyaan 60 jaamacadood iyo 16 wadan ma santa good waaya waqtiga la asaasay waa noo sheegtay cidda maalgelisana waa dawladda Germany
fursaddan yaa ka faa'iideysan karo fursaddan horta waxaa loogu talagalay sub-Saharan Africa oo tira ahaan waxay gaadheen 48 waddan ilaa 49 waddan sometimes waxaana weeyaan inta Sahara ka hooseysa marka waxa sub-Saharan Africa la dhahaa marka laga reebo Masar iyo inta khaliijka ku teedsan Algeria leh Masar leh Libya leh inta khadka saaran marka laga reebo sometimes Sudan waa lagu daraa marna laga reebaa laakiin sub-Saharan Africa waxa weeyaan Saharaha marka joogto wixii ka hooseeya waa sub-Saharan Africa la dhahaa marka ilaa South Africa inta laga gaarayo Soomaaliya ku jirto Ethiopia ku jirto Kenya ku jirto waxa kale Nigeria iyo wadamadii Liberia iyo wadamada geeska West Africa iyo saddex meelood ba xoog saara jaamacadaha xiriirka la sameeyay ay saaran yihiin waxa weeyaan East Africa oo ugu weyn tahay Kenya South Africa oo ugu weyn tahay South Africa ugu weyn tahay iyo West Africa oo Nigeria iyo ay ugu yihiin ka wadamadaas xoog saara good waaya bal haddii aan dib u laabano intaana safarkaaga horta aan u gelin bal faa'iidooyinka ay leedahay jaamacaddan bal haddaad wax yar ayadana sharaxda barnaamijkan ilaa 6 qaybood buu ay qofka ka caawiyaa wuxuu ku siinayaa full pocket money oo ku saabsan pocket money-gaas baahidii haday hostelkii ay tahay haday cuntadii tahay haday baahiyi kale ee aad magaalada uga baahnayd ay tahay uu ka caawinaya hostelkaasi marka waxa la bixiyaa waa lacag 500 baa la siiyaa masterta oo sometimes meelaha qaar waa 380 bay noqotaa marka wadamadu difference 500 marka euro mise dollar euro marka wadamadu kala duwan yihiin wadamada qaar waxa la siiyaa 380 euro wadamada qaarna life style-ku uu ka duwan yahay lacag badan ma la siiyaa laakiin average-ku lacagtu waa 500 oo euro ilaa 380 euro inta u dhaxaysa oo masterta PhD-dana waxa la siiyaa lacag iyagu 690 euro ilaa 900 euro 900 gaar 720 euro ayagana average-ku uu dhaxeeyaa sax waay marka waxyaalaha laga dibirayo maxaa kamid ah waxa ku jira qaybtaas pocket money-gaas waa option waxa weeye waa mid koobaad package labaad baa jira oo waxa la siiyaa tuition fee-gii iyo research-kii oo wada socda oo research laba jeer baa la bixiyaa tuition-skana semesters baa loo bixiyaa lacagta oo iyaga program bixinaya laakiin research-ka toos baa adiga jeebkaaga lagu soo shubayaa laakiin tuition wax loo diray jaamacadda package saddexaad baa jira oo travel expense oo travel expense waxa la siiyaa qofka wadanka jooga ma waxa la siiyaa qofka wadanka kale ka imanaya ayuu gaar yahay ka isaga waxa la siiyaa qofka wadanka kale ka imanaya waxa jira isaguna insurance ama health insurance oo xagga caafimaadka isagana waxa la siiyaa qofka ka imanaya wadan kale sida tusaalahan imika kale Soomaaliland ma ka yimid waxa nimid Kenya ka wadan kale ka yimid maadaama wadan kale ka yimid waxay ku jiraan aniga travelkii iyo insurance-kii labadaas helaya marka waxa jira inta soo qodob ayaa ugu waaweyn shanta qodob oo ugu waaweyn caafimaadkii pocket money-gii research-kii iyo institution-kii waxa qodob shanaad baa ku jira oo ah isaguna thesis-ka kale arday markay qalin jabinayso book baa la qoraa tabaacad buu yeeshaa qalin jabin baa jirta jaacad laftigeeda oo lacag charge ka dheeraad laga rabaa kharashaadkaana way ku jiraan institution-ka waxa jira hal program oo shanaad oo faa'iidooyinkiisa laakiin saasi kuma jiro offers-ka baalka laakiin waa separate oo gaar baad u xareynaysaa waxa la yiraahdaa research stay waxa lagu tagaa German waxa tagaysaa marka sanadka koowaad dhamaysato sanadka labaad ee intaanad bilaabin ayaad u baxaysaa daraasadka marka dhamaadaan ama course work buu leeyahay course work qaadanaysaa course work marka qaadato ayaad u baxaysaa inaad research ka macluumaad baarista wixii aad u baahnayd haday lab tahay haday waxyaabo kale u baahan tahay marka isagana si gaar ah loo xariistaa jaamacada ku yaala Jarmalka loo codsadaa professorada lagu xirayaa marka qofka codsato ay jaamacadda ku soo aqbashayaduna course-kaas laga soo aqbalo research-ka ay jaamacadu ku siin karaan offer-kana gaar baa loo xariistaa laakiin waa zain program oo lagu talagalay qofka imanaya program-kan tusaalahan region-ka inuu tagi karo Jarmal oo la siin karayo isaguna marka pocket money iyo health caafimaadkii iyo hostelkii adeegaysay iyo wixii oo dhan isagana gaar baa lagu siinaya good masha Allah waaya bal safarkaagii aan dib ugu bilaabmo
sidee buu safarkaa ku bilaabmay bal sidaa ku heshay application processka iyo bal sidaa ku timid horta waxa weeyaan waa long process oo steps kala duwan baa barnaamijka loo maraa barnaamijku markuu bilaabmayo waa la xayisiiyaa usually waxa inta badan waxaa la soo xayisiiyaa September ilaa November buu dhacaa barnaamijku oo September bilowgeeda ayuu bilaabmaa laba bilood ayuu socdaa barnaamijku marka waxaan soo xareeyay anigu November oo xilligan ay ku jirno kala ah na waxa la soo diray markaan foomka waxaan xareeyay markii koobaad jaamacadda على كحرير لسمي جامعة جامعة كحرير لسمي جامعة waxay iga cusub jaamacadda marka waa jaamacadda Kenya jaamacadda Kenya weeyaa Jomo Kenyatta jaamacadda markan la soo xiriiray jaamacadda waxay siisay qoraal tii admissionka oo admissionkii officialka aan ahayn laakiin se mid lagu sii sugayay ay tahay iyo research ama schedule-kii jaamacaddu ay u degsanayd labadaas sano qaabka waxbarashada loo qaadanayo qaabka coursework uu dhacayo research-ku xidhi uu dhacayo marka كامك يسوي درين جامعة أنا دريا قلادي مكا داتك مركب بروسس كده مية جامعة كده ما هذا بس كي كهلاي وحنون دري دار مكان دماغ يستنى يجينا information كده نوضع دري وباهنا عين motivation كي تاي زي فيجي أتصيدي كلا دماغ يستنى recommendation letters كي كشري وحي أنا مكان دماغ يستري أيانو دري good بورتك مكان دماغ يستنى سميت كريي وحلاي صوت دري ورقة confirmation letter إن حريقي دارك marka ay ga cadaataa kaas inaan dhameystiray process ka waxa ku xigay waxaan sugay 3 bilood ilaa 2 bilood ku dhow baan sugay waxa la soo jawaabay weekii saddexaad ee February oo weekii labaad ee February waxa la iska jool gareeyay lagu week baynu haysanaa haysataa waqtiga firaaqada leedahay February gudaheega weekan gudiisa soo cilaanso marka san interviewga kala bishii labaad good waxaan xareeyay bishii 12aad bishii labaadna interviewgi waan galay interviewga marka Zoom baa laga qaaday interviewgi Zoom baa laga qaaday Hargeysa jooga ana Hargeysa jooga marka interviewga interviewga dhamaystay waxaan u yimid marka bishii lixaad dhamaadkeedii baa la soo diray warqadda offerka inaan ku guuleystay barnaamijkii inaan helay aan dhamaystiray shuruudii laga baahnaa waxaana la siiyay waqti aan ku soo baxo bishii lixaad على بيش الضوات يدي استعداد راح يقول بيش السجالات تمن كده كهر وأنا شاعد تماضو ديسك ديوان جريسو ريبورت جريسو ورقة بروفيسور مركز كان تاني كبودين في سها يتجت كيو أي قصة دره ماي في سها تجرك خرشات كلاك هو بحياة أنت مقالك صام ما بحيزه وحويا واحد شيء كلاك بحيوي لكن حالة سمية ورقدها واحد الروتين دوكيمنت كرزيدة meel kastoo safarka ku soo martay عدينا إنه إذا تاكسي صار عادي هذا صار عادي ديارد هذا صار عادي أنت بدنا يشوي واحد برفع مركا هذول كل علنا يعني هذول كل علنا دي بورتك يوشوا يسا مركا والله هذول بدي بيلك يوشوا يلعقت هذا ما شاء مركا واسلا مربو وكوق بعوين مربو بالعقت هذا هذه good أنت اسمك الجاي معه مركا تيمي بالكور صير جوسو دوي guriye leeyihiin miya ardayda la dejiyo maaragtay elboorka miya laga hortagaa mase qofku isaga maaragtay maadaama iska dhul Soomaalidu badan tahay qofku isaga intuu maaragtay yimaado guri iska sii day karo hadhowna jaamacadii meesha loogu talagalay tagay horta niyo imika laba shay horta kan ayaa jira oo dadku laba qaybood bay u qaybsamaan qof asxaab buu leeyahay magaalada joogta sax qof marka asxaabtaas soo dhawaysa good hostel ku degan yahay dejisa ama ka sii bixisa hostel ku degay taas waa option gaar mid kale jira qof waxa laga yaabaa waxa u degan magaalada dad baa u degan family yihiin marka waxa laga yaabaa dadkaas soo dhaweeya magaalada dejiya مثلا noo kala nimka xilli dambaan imid oo magaalada soo galay koodii habeen soo galay magaalada nin asxaab wax xilliga ku soo jeeday bajir marka waxa family baan ku lahaa marka family-gii bay igu soo dhaweeyay tigidhkan soo diray sheegay magaalada imanayeen iyaga soo dhaweeyay qofka marka rabo inuu fursadan ka faa'iideysto maadaama ay tahay fursad fudud oo waliba maaragtay wadankan Kenya hadda fursado badan buu bixiyaa oo maaragtay waxbarashada iskoolashiyada tababarada oo wadankan aad looga yimaado marka sida hadda waxa kamid ah Pan African oo kale
daad oo kale hadda mataqaan adiga heshay kuwa kale oo ayagana jiraan marka maxaa qofka marka looga baahan yahay shuruudo ah qofka rabo inuu fursadan ka faa'iideysto horta wallahi si marka loo eego aad buu competitive u yahay barnaamijkani dhinac marka laga eegana waa fursad bannaan oo dadkuna ay ku yar yihiin qofku hadduu competitive yahayna waxa uu heli karo waa ta koobaadee waxa shaygan ka dhigaya inuu competitive yahay waxa weeyaan tartanka xagga numberka badan 49 waddan baa ku tartamaya marka adiga wixii kaaga soo hagaaga wax laga yaabaa inay yaraato numberka dadka laakiin wax faa'iido ku ah numberka dadka deegaankaaga ka soo xareynaya ama waddankaagaas inuu yar yahay waxay ku dhigaysaa inaad noqoto qof kaliya loo xusho haddaad shuruudaha buuxiso waxyaabahaas marka wax ka dhigaya inaad noqoto qof hore laga doorto laakiin waxyaabaha ka dhigaya inaad dib u dhacdo waxa kamid ah numberkan badan ee dadka loogu talagalay tusaale ahaan East Africa oo kale haddaad imika tusaale ahaan jaamacadda East Africa ku taala xareynaysa aduna East Africa tahay waad ka competitive badan tahay ninka Nigeria ka imanaya marka waxa laga yaabaa hadda 10 nin Soomaali ku soo xareysaan inay laba Soomaali ku soo baxdo mastax ku soo baxo xagga Nigeria laga yaabaa in marka soo baxo waxa loo eegayaa ninkan isugu dhow yahay areadan ugu dhow yahay familiarism deegaanka ugu dhow yahay si fudud oo la qabsan karayo nidaamka meesha ka jira marka hadduu qofka maaragtay jaamacadiisu uusan ku oolin wadanka soo hadda Kenya oo kale 3 jaamacadood mise 4 jaamacadood waa 4 jaamacadood ba host garaya barnaamijkan oo daad marka Soomaaliya oo kale jaamacad kamid ah ma host garayso qofkiina waa Soomaali badan baa xiraysanaysa marka fursadiisa qofkaas ma ku xiran tahay in dad badan ay xareystaan waddanka ka soo xareystaan hadii dad yar xareystaan ay jaaniskooda ay dad badan ku helaan yaraanayso imika tusaale jaamacadda ama programka kan xareeyay waxa loogu talagalay 7 qof oo international ah iyo 5 qof oo gudaha marka ninka gudaha jooga 5 qof uu haystaa hadii ay 30 qof ku tartamaan mar walba shabba ka soo baxay chance fiican baa haystaa laakiin 7 ka imanaya dunidii Afrikada kale ka imanaya waxaan anaga programkii waxa nagu jira nin Jarmal ka yimid Jarmal ka yimid buu hagan keenin noogu yimid marka dhinaca marka ka eegto 7 qof baa la heli doonaya in la qaato dhowr qof baa doonaysa ku soo tartan marka adiga number skin waxa ku xiran tahay waddankaasi saad marka levelkiin uu sareeyo wax barashadiisa uu sareyso competitive ugu tahay barnaamijkan ama qofkii qualified ku ahaa okay shuruudaha ku socon marka shuruudaha qofka looga baahan yahay raba inuu barnaamijkan xareysto balko iyo 2 iyo 3 iyo 4 daad tirin karta shuruudaha horta waxa ugu weyn qofkan inuu shahaado ka socdo institution dawladeed ama government-ka oo qaybta public teaching ka noqoto ama public server ha noqoto tusaale qofkan waa shaqaale dawladeed waxay siinaysaa chance fiican in qofkan competitive ka noqdo hadii uu teaching qaybta tusaale jaamacadaha iyo wax ka dhigana waa chance fiican oo isagana siinaysa marka mid waa labada qaybood ee hadduu inta hayma chance-kiisu yaraanay chance kala labaad baa jira shuruud labaad ku xiran baa jirta 6 sano waa inaan ka soo wareegin jaamacadiisi أنا 6 سنة كور وأنا قلنا جبسي 6 سنة كور هذا أنت ودحيس لكن هذا 7 سنة نقطة قلنا جبنت هذا كسور ركتي كانت كهو كل 6 سنة وين كسور ركتي قلنا جبنت هذا وحي كسر ريا لما بحنا ما هذا 2 سنة يحس شروط لحد لما شروط هذا كلها كسي حاجة أو academic performance كذا هذا وصريو بحط هاي قف شروط هذه يفرق وحي good شروط الافراد قفك نقطتين بهلسنا حويان وحي اكاديميكا uu soo qaatay in uu xunka ka soo shaqeeyay good shahada jaamacadda waa sababtan loo xiiseynayo qofkan dawladda ku jira ee shaqeynaya shaqaale dawladeed baa lagu ama teaching baa lagu qof xigista ku jira marka waa qof horta waa shaqaale uu shaqeynaya wixii xirfad uu ku shaqeynaya ama qaybta teaching ku shaqeynaya ama qaybta cilmi baaris ku shaqeynaya marka labadaasna waxa ku saameynayaan in qofku uu competitive noqdo waxa afraad ee shanaad ee muxuu ahaa laga rabo ku saacideeya shuruuda qofka waxa weeyaan in uu dhisnaado CV-gaagu recommendation-kaagu iyo motivation letter-kaagu qoraalada qoraysa inay noqdaan qaar standard oo qoran marka motivation letter-kaagu waa standard iyaga uu qoran yahay linki bay leeyihiin ay geliyeen marka wax ka rabaan standard-kooda raacdo CV-googa wax rabaan standard-kooda raacdo
reference kooga ama regulation letter kooga waxa rabaan inaad iyagana standard kooga raaco good wasi wanaagsan okay intii aad processkan ku jirtay ma jiraan waxyaabo caqabada oo asleedahay way iga hor yimaadeen oo asleedahay dadkuna ka digtoonaa horta markaad Soomaali tahay saddex caqabadood baa ay ku haysanayaan laga marka kale inay ka yaraadaan caqabaduhu laakiin adiga waxa laga yaabaa markaas inay kasii bataan caqabada koowaad waxa weeyaan qaybta qoraalka qaab ahaan dee waxaynu oranay dad qoraalka iyo qoran yihiin deegaanada marka dadkeena la eego Soomaali ahaan marka qoraalku waa caqabada koowaad ee qofka Soomaaliga xanibaya ka reebaya inuu la tartamo dadka kale Afrikaanka kale muxuu ahaa nidaamkan soo xareynay sida ninka waxa la qorayaa recommendation letter baa la qorayaa motivation letter baa qori CV baa qori waxyaabaha ugu badan ee qaladaadka ka dhaco dadkuna ay ku horaan waxa qoraalka qoraalku marka waa inuu noqdo qoraal kaaga waa inuu noqdo mid la tartami kara dadka kale caqabada labaad ee timaada waxa weeyaan xareynta barnaamijyada oo kale barnaamijka soo u leeyahay portal marka jaamacaduna waxay leedahay portal gaara jaamacadda sometimes waxa loo xiriiraa academic waxa loo xiriiraa by email WhatsApp-kaaga ii sheego ku soo dirayo xasma jirto adiga official baa jira email baad wax ugu xareynaysaa email-kaaga marka waa inuu noqdo qaab qoraalkiisu waa inuu dhisnaado waa inaad garanayso waxaad codsanayso waa inaad qofkan u sheegto magacaagii waa inaad u socoto waa inaad sheegto waxyaabaha aad samaysay deedna marka qoraal fiican u samayso qofkii deedna wuxuu ka helayaa qaab qoraalkaaga wuxuu ka helayaa macluumaadkan iyo waxaad ka soo shaqaysay wax soo baratay deedna marka wuxuu ku siinayaa information ugu filan deedna marka wuxuu ku soo dirayaa kaasna waa qaabka xareynta in jaamacaddiina xareyso portalkiina aad xareyso labadaaba qaab qoraal marka isagana waa qaabka xareyntu iyaguna system iyo nidaam la raaco leeyahay marka kan jaamacaddu iska normal isagoo inta badan male guidelines la raaco male laakiin portalku wuxuu leeyahay guidance buu leeyahay la raaco qodobka ugu dambeeya hadaba waxa weeyaan waxaad ka soo gudubtay intaas oo dhajaanis baad ka soo gudubtay waxa hadaba qodobka saddexaad waxa weeyaan soo bixitaankii inaad magaalo ka timaado magaalo kala timaado wada doonto cid aanad ka garanaynin inaad hesho insurance baa jiray inaad insurance ka hesho waxyaabo ugu badnaa waxa weeyaan marka aniga health insurance wax company badan oo insurance jira laakiin waxa laga rabaa inaad iska timaado invoice ka soo qaadato maaha waxa laga rabaa inaad lacagtii aad iska sii bixiso sii dabarto inaad iyaga tiraado lacagtii wata inaad iska bixiyay saas oo sameeyso tan kale waxa jirta qofka markuu travelka soo sameeyo tigidhada waxa jira travel agencies ka shaqeeya waxyaabahan marka waxa jira qaar u furan iyagu inay dadka dhacaan ya laakiin waxaad heli kartaa meelo yar oo fudud imika tusaalahan fiisaha oo kale marka la dalbanayo fiisa electronic baa laga dalbadaa dalkan kala imanaya inta badan wadamo badan Afrika kana saas oo shaqeeyaan problemku wuxuu ka taagan yahay dadku niyow xog badan ma raadiyaan inta badan qof inuu si fudud wax kasta ku helo qaba laakiin waxa laga rabaa in kasta wax kasta oo qabanayso inaad isaga jabaan baartid oo more aad sameeyay anigu wali waan asxaab badan lahaa haddana wax igu dhacday inaan inta safaaradda la xiriiro lacag laga qaado ka badan lacagtii lagu bixiyay laakiin waxa electronic wax laga qaadaya $400 waxa laga yaabaa travel agency inuu $250 ka qaado wararka kharashka intii laga waa u dhaxaysa waxay lacagtii lagu celinaya waa lacag yar ma badna waxa la doonayaa asmeynimasti lacagta kooska ugu hooseeyay in kharashku ka qaado haday travelka tahay haday diyaarada soo raacaysa tahay waxa laga yaabaa markaad ka imanayso Hargeysa ama aad ka imanayso Garowe inay diyaaradda Itoobiya qaato lacag badan ku qorto laakiin dad xamar soo martay inay lacag yar oo ka jabaan ku qorto okay wax da ma ku xiran yahay barnaamijku da inta badan ma eego way wax la eegayaa qofkan capacity-giisu waxa eegayaan waa inuu teaching ka shaqeyn karo waxna dhigi karo academic reference-kiisu fiican yahay daad marka ma xirnay laakiin in just inta lixda sano ka soo wareegtay jaamacadiisa in baa la eegaya okay badana maaragtay waxa jira shahaadooyinka markii wadan kala la codsanayo in wasaaradda arrimaha dibadda oo kala laga dhufsado marka qaybta tasdiiqinta qofka miyaa looga baahan yahay sidoo kale aan ku raacay wax shahaado English ah miyaa looga baahan yahay sida IELTS TOEFL waxyaabahaas orto waxa iska caada ah qofku hadduu wadan ka tagayo inuu wadan kala tagayo waxa weeyaan laazim waa in shahaadadaadan la notarize gareeyo notarize waxay shahaadadaadan ilo bedelo
levelkii wadankan uu ka joogay taana lagama sameeyo wadanka gudihiisa waxa laga sameeyaa dalkan aad imanayso marka tusaale ahaan haddii imika doonayo in oo Chinese laga furan marka soo xarin ilaa qiimo codsan in shahaadada soo tasdiiqiyo programkuna ay muudiinin jaamacaduna qiimo codsan laakiin marka dalka yimid aan soo galay waxa la igu codsaday inaan shahaadada soo transcribe xagan ka noo transcribe waxa jira maxaa la public notary-ga wadanka uu leeyahay notayooyin baa jira waxa jira dad advocates oo lawyer marka waxa la tagaa xarumahaas leeyihiin marka waxa la iska xaruntu inay ka dhisan tahay wadanka oo ay haysato shahaadadii marka way u tagaysaa shahaadada ay ku noo transcribe warqad declaration waa marka timi kadib marka timaado ka bacda marka dalka laakiin chance wada haysataa labadaas inaad haysatay wadanka inaad ku buuxin karto inaad qormayso waa hadii kala dhaw caqabad marka shahaadada lagu siinayo shahaadada qalan jibinayso ay caqabad ku noqonaysa in shahaadada lagu diido good masha okay waxyaabo shahaado miyaa la isku xiraa Englishku language-ku barrier kuma aha barnaamijkan daar good language-ku jaamacadu inay waliba Afrikaanku inta badan iyagu kuma xidhaan laakiin marka German laga tagayso jaamacadaha qaar waxa level-koodu inuu international yahay marka inaan la ku aqbalin laayad level English-ka soo qaadato masha Allah laakiin halkan waxa kaaga filan warqad yar oo introduction letter oo English medium inaad ka soo qaadatay jaamacadaadii oo cadeynaysa inaad luqadaada English ku baxday masha okay marka qalan jabiso oo halkan aad waxbarashada dhamayso maxaa xiga ma ku sameynayaan fursado kale maalgelin ma ku sameynayaan oo kale bal qaybta ka waran barnaamijku fursadahan waxa weeyaan package dhan oo isku xiran waxa loogu talagalay qofkan inuu impact ku celiyo dalkiisa lagama harayo oo hadda toole research badan baa oo wadanka ka shaqeynaya waxa leeyihiin dawladda Jarmalka marka waxa weeye sanduuq wax jira bangiga Jarmalka ayaa inta badan wuxuu fuliyay mashaariic badan oo hay'ado badan buu leeyahay wadankii waxa ka shaqeeyay imika ilaa dhowr hay'adood oo WHH iyo ay ku jiraan iyo GIZ oo inta badan ugu caansan mashaariicda inta badan Afrika iyo waxa ka shaqeysa oo inta badan development ka shaqeysa cilmi baarista iyo development-ka wax la dhisayo waxa laga shaqeynayo ay ka shaqeeyaan halka kaaga harayo ku daba soconayaan maadaama system-ku ku jirto email-kooga ay hayaan information-kooguna markasta waa lagu wadaagayaa haddii cilmi baaris la sameynayo jaamacadda lafteedu inta badan waxa lagu raadinayaa inta aad joogto dalka inaad internship heli karto si marka performance-kaaga haddii shaqo ka wadaan dalkaagana alumniga mar walba fursad good masha Allah waaya marka wax ka waranta marka maadooyinkiisa qofku baranayo ma kooban yihiin mise qofku maado kasto ka heli karaa sidoo kale masters kaliya miya mise maaragtay PhD-na iyadana waa la socotaa programkan soo qaatay oo kale markaan dhiganayo masterna uu leeyahay PhD-na uu leeyahay laakiin isku baxayna wadaan master hela PhD ma heli karo saan soo xareeyay master tan xareynaya hadhow PhD good taas waa taas tan kale mastertu waxa u dhisan tahay qaab coursework oo kooban oo waxa dhiganaysaa 14 week baad dhiganaysaa inta hore iyo week 2 week oo exam iyo isku jira baalkii waxaad baranaysaa waxbarashadaada gebigeega waxa weeyaan 9 bilood mise 6 bilood 8 bilood wax saas baad waxbarashadaada u dhan qaadanaysaa September bay waxbarashada ku bilaamaysaa May bilowgeeda ama April dhamaadkeega waxbarashada ka dhamaanaysa gebigeeda inta kale waxaad sameynaysaa wax qoraal baad sameynaysaa waxaad sameynaysaa article qoraysaa journal baad daawacaysaa waxa laga rabaa inaad ugu yaraan hal paper wayna daawacdo one term paper inaad daawacdo inta lagu jiro sanadkaas hadda toolna thesis-kaaga aad qorto difaacato sameynaysaa good waan gartay marka maadooyinka qofku qaabkii ku dooranaya tusaale ahaan qof waxa jira caafimaad buu bartay laakiin wuxuu iska rabaa Kenya oo kale inuu maaragtay oo ka diyaariyo jaamacadiina ma bixiso oo maaragtay Kenya ku taalo waxa bixiso ka soo qaaso Afrika oo kale marka bal qaabkaas ayaga ka war qofku master Soomaaliya inuu wadankaas maadooyinkiisa bixisto horta runtaas oo taas waa su'aalaha ugu badan intii aan meesha yimid la weydiinay waxaana weeyaan jaamacadda iyo programka course-ka iyo wadanku isku xidhan yihiin tusaale ahaan jaamacadda Jomo Kenyatta waxay bixisaa soil and water iyo energy labada course-da doonayso programka meel kale lagu bixinayo wadanka wadamada kale ma jiraan
jaamacadana kaliya lagu bixinaya marka inaad jaamacadda laftigeega codsato programkana iyaga aad ku qaadanaysa marka taasi way isku xidhan yihiin oo imika ma kala reebna dad tiraado statistics baan doonayna barto statistics waxa lagu bixinaya tusaale ahaan Uganda oo kale ma biostatistics oo kale biostatistics baad doonaysaa inaad qaato oo aad ka qaadato Jomo Kenyatta ee deedna barnaamijku ka bixiyo ay programku wuxuu ku leeyahay jaamacadda saddexda program ama labada program kaliya taana jaamacadda lagu bixiyo dalkeegana lagu barto marka qaabkaas uu sameeyay instructor program marka saas uu sameeyay waxaan soo gaarnay gabagabadii qofka raba inuu fursadan ka faa'iideysto maxaa isleedahay way caawin karaan oo isleedahay salahan qofka maaragtay inuu tababaro badan qaato oo meel waxyaabo badan caawiyo oo maaragtay waxyaabo noocaas oo kale ah marka bal ka waran maxaa dhihi kartaa qofka hadduu rabo fursadan inuu ka faa'iideysto maxaa qofka caawin kara qofka waxa caawin karaya waxaan qaadayaa afar qaybood oo ka qaadaya oo major ugu waaweyn shayga koowaad waxa weeyaan waa academic performance inuu ku diyaarsan salahan hadii shahaadooyinkaaga jaamacadda iyo transcriptkaaga iyo dhan ku diyaarsan yihiin waa axsan maxaad se ku dartay jaamacad kaliya loo baahnaa maxaad ku dartay maxaad diblooma qaadatay ku saabsan barnaamijkan inta skaraynayso salahan aniga water baan xiiseynayay Soomaa maadaama biyaha iyo ciid inta skaraynayay waa inaan raaciyo shahaadooyin kale oo biyaha la xiriira salahan waxa qaatay diblooma ku saabsan biyaha iyo hydraulic water resource management and hydraulic soo qaatay waxaan qaatay oo kale research methods and data analysis diblomooyinka aan qaatay waxay caawinayaan oo istangaskrinayaan shahaadada tusaalahan qalalnayd ama koorsooyin badan oo loo baahnaa ka maqnaayeen inay igu buuxiso oo la oran Britole koorsooyinkaas ka maqan oo aad u baahan tahay magaalada ka soo buuxi oo iska bixi taas waa advantage of academic performance ku waxyaabaha koowaad ee ku caawinaya shayga labaad waxa weeyaan work experience ama khibradda aqoonta shaqada soo qaadatay dad cilmi baaris ka soo shaqeysay oo cid ka shaqeysay aad la shaqeysay waa axsan haddaad koorsooyin badan dhigtay oo teaching badan samaysayna waa axsan work experience ku waa shayga labaad ee ku caawinaya ku soo leef gareynaya inaad gaadho the best candidate ki aad noqoto qofkii lagu talagalay arrin saddexaad baa jira oo tusaale ahaan dadku ay sadaan haddaynu nahay Soomaali waxa la yiraahdaa wax extracurricular barnaamijyada ama volunteerinka ku saabsan ama ka baxsan waxbarashadaada tusaale ahaan conference-yaad ka abaabushay oo ka shaqeysay barnaamijyo dadka lagu community-ga wax laga qabanayo engagement lagu sameeyo ka qayb qaadatay waxyaabaha extracurricular ama waxa tahay qof athlete oo tusaale ahaan orodka ama kubadda soccer-ka waxa ciyaara waxyaabahaas waxyaabaha xageena ku fudud oo inaan waxba u qaadan waxyaabaha qofka keena performance-kiisa hadii uu education-kiisa hooseeyay qofka in kor loo soo qaado arrinka ugu dambeeya afraad waxa weeyaan waxyaabo achievement ku qofku gaaray waxa nolosha aad horumar ka samayso achievement ka gaadhay oo award lagu siiyay oo inkastoo tii hore la xiriirsan tahay labadii saddexdii hore la xiriirsan tahay laakiin tan waa award ka gaadhay ama honor ka noqotay jaamacadda haddaan honor wahayd dee waxba tayba hore laga qaadanay marka achievements ku waxyaabo qofku nolosha horumar ka gaaray waxyaabaha qofka soo lift gareeya ee gaarsiiyay inuu noqdo best candidate marka warqadahan ma soo gelinaysaa mas waxa jirta isbeesiyo aad waxyaabahaas kale aad ku qori karto sida essay oo kale hadii waxay noqotaa saddex qaab baa u dhacdaa achievements kuma honors waxaad keeni kartaa warqadii recommendation letterka ee qofkaasi kugu qoray ama cidaas ay ku siisay ama jaamacaddu ku siisay ama cid kale ku siisay warqada ahaan soo qaadan soo shaambadaysan tasdiiqsan oo date-kii wixii wada leh laba qaab labaad oo soo gelin kartaa oo waxaad ku cadeyn kartaa motivation letterka iyo CV-gaaga labadaba arrinka saddexaad ugu dambeeya waxa weeyaan inaad aad ku cadeyso CV-gaaga ama recommendation letterka ka labada saddexaas ay kala noqonayaan in qoraal ahaan aad u sheegto iyo inaad ku cadeyso CV-gaaga inaad achievement ka gaadhay Khalid aad ma san tahay bal ka waran wadanka aad timi runtii waxa weeyaan waxbarashadii dadkii kala duwanaa oo maaragtay waddanka kale ka yimi sida uu la qabsatay bal hadaad sawir guud ka siiso bal nolosha meeshaas dadka horta noloshayda haddaan si u eego waxaan isu haystaa nin Hargeysa ku dhashay ku koray wax ku bartay meel aan uga bixin masha Allah expectation-ka dunida ka qabtaana dee media oo kaliya kuma saabsanee nolosha rasmiga ee dadku ku nool yihiin way ka duwan tahay tan laga sheego media horta inaad dalkaaga ka timaado dalka
kale aad timaado oo dadka xataa ay noqoto marka dambe inay dadka baranaysaa dee maalinba ay step kugu qaadanayso maalinba wax ka baranayso waxyaabo qofku doonaya noloshiisa doon horumar ka gaadho waxaa la inta badan waa inuu ka move gareeyo nolosha ku qoray intuu ka tago waa inuu nolol kala tago waxaad baranaysaa waxa laga yaabaa markii hore inaad dee family la noolay imika laakiin adaa isku qabayda wax kasta oo kharashkaagiya waxaad baranaysaa qaabka lacagaaga u maareynay waxaad baranaysaa sidaad cuntadaada u samaysan lahayd waxaad baranaysaa sida time waqtigaaga u manage karin lahayd sababta waqtiga asxaabta la qaadan lahayd iyo xilin waxa laga firaaqo badan kugu soo baxdo amba in waqti kugu yaraado wala dadka wala nooc waxaad baranaysaa bal dadkii asxaabna waad ka timid magaalada dalkaaga baad ka timid asxaab kale oo aanad hore u aqoon waad baranaysaa marka laftigeyguna waxay kaaga baahan tahay waqti badan oo dadka qaar wax ku dhaca waxa la yiraahdaa cultural shock oo tusaale ahaan wuxuu la qabsaday in tusaale ahaan direction iska la tuso oo dad tiraado maanta xageen bilheblaayo ku taala bilheblaayo garanaysaa ha meeshii bilheblaayo oo meeshii ku xigtay weeyaan in sal ugu tilmaamo dalkan laakiin markaad imid wixii ugu weynaa igu dhacay wuxuu ahaa qof haddaan direction weydiiyo inuu igu yiraahdo go that way then right يعني توصل يرسع عاد إننا ليحو قبل جاء يعني وحنا كسينا كم شيء يو مستنين لك بتصعنا سا أنت لك بدل حنا علامات بلين لقرنا يو بقى هي هو هنا يقول عيو حاصل هاي بقى وحن أنا اعتمادي إن استعمال جوجل كي مستر جوجل إن ماب كايكتو دايركشنز كايكتو ماشي ندون يودن يعني مكا حيادو استعمال بقى لا ما بيشدت مين شيء لبعض wuxuu noqday dee qof musliman ahaayo salaadiisa iyo waqtigiisa masaajidkiisa ku ekaa waxa adkaatayna masaajidkii gaaro masaajidku wuxuu ku jirayaa 8 kilomitir 10 kilomitir marka qaar ugu yar baa 5 kilomitir ku jira masaajidka jaacada masaajid bay leedahay marka 5 kilomitir ku jira ku yari marka waa intaas oo dhan taraafasho aad ku tala gasho waqtiga inta lag inta u soconaysa 30 daqiiqo 20 daqiiqo 40 daqiiqo saacad baa marka waa inta inaad ku tala gasho marka cibaadada iyo waqtigaaga isku manage karayso good ma sha Allah gabagabadii maxaad talahaan u soo jeedinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee joogan aan talahaan waxaan soo jeedinayaa saddex arrimood inta badan oo ku darsado dhalinyaradeenu badan adduunka waxa ka qabaa marka wax xireen iyo wax isleeyihiin Soomaaliya waa tahay baasaboorkaaga lama bahalkeysna fursadihii ma raadinayaan marka taasna way jirtaa taa kuwa horeeyay intaan fursad ka bilaabay ana hargeysan kayn baasaboor Soomaaliya kuma niman Djibouti-na kuma niman Ethiopia-na kuma baasaboor Soomaaliya ma ku soo baxay caqabadna igu noqon intaan soo baxay sidan waxa dad badan oo baasaboor Soomaaliya ku imaado haldan ku imaadana way jiraan Uganda waa lagu tagaa ilaa dhowr wadan oo kale waa lagu tagaa Rwanda laftigeeda waa lagu tagaa wadamo badan oo ku sii kartaa taas waa horta koobaad oo inuu challenge ku noqdo maaha baasaboorku inta badan ku celiya waxaan leeyahay kow waa inaad ogaato baasaboorkan intee wadan baa u flexible u yahay lagu tagi karaa taa dad fahanto waa halkeeda talabaad waxa weeyaan waxa jira mararka qaarkood wadamada Afrikaanka aad ku tageyso inaanay cilaaqo fiican lahayn wadankan baasaboor Soomaaliga oo kale ama dad Ethiopian sida talabaad kolba kiyaad qaadanayso taas waa talada koobaad talabada labaad waxa weeyaan warartu fursaduhu noloshooda way badan yihiin adduunka dhan waa soo furmay fursad adduunka dhan waa isku furan yahay imika mobilkaaga ama laptopkaaga wuxuu kugu xiri karaa duni kale oo aanad aqoonin inagu haddaynu ka faa'iideysano social media ama networking iyo waxan dhanka xuno TikTok-una in dadka ka cayno waxa jira fursad inta ka badan oo ku dhex jirta media haddii aad fahanto luqadda oo fiican tahay sida computerka ama applicationska loo xareeyana aad fahansan tahay meel kastoo dunida wax taala fursad ma Soomaalida dad Soomaaliyeed meesha uu ku noolo marka waxaad xareyn kartaa fursado aan heli karin nin kale oo Afrikaan oo kugu xigo ninka Kenyaanka fursad aan heli karin baad u heli kartaa oo Soomaaliga kaliya loogu talagalay baa jira waxa jirta qaar loogu talagalay xaleeyay marka dalkaas marba konta gaska leegay waxa jira qaar loo eegay Sub-Saharan Africa marba loo eegay East Africa Kenya kale barashada fiican tahay xaqna Soomaaliya saas marka fursado badan oo waxa jira caalami ah jira oo marka aad uga faa'iideysan karto intaad ku mashquulsan tahay social media ama Facebook ama meel kale taas waa qodobka labaad waxa weeyaan academic inaad iska dhisto waxyaabaha academics ama qofku ama cilmi baaris noqoto marba xirfadaadu mar walba ay korodho maalin ka dambaysa hadii qoraalkaaga tahay haday tahay language-kaaga
language iyo meelo qaar aan laga dhig shardi laakiin waxa dhow toole adiga noloshaada ma noloshaada ku anfacaya maanta luqad ku dhisato waxaad baratay culture waxaad baratay dhaqan waxaad baratay xadaarad waxaad baratay dad dhan baad ku xurmaysaa dad badan baad ku xurmaysaa aqoon aanad hore u haysan baad baranaysaa guntiga gabagabada qodobka ugu dambeeya dadka ku boorinaya waxa weeyaan inaan la dheersan fursadaha fursadu waxay ka lifti garan karaysaa nolosha adoo jeebkaagu yaraa dadkaagu yaraa in dadka ku xidhad yaray tusaale waxa laga yaabaa maanta hadaan South Africa wax ku soo barto waxaan baranayaa dad ka badan dadkeena aqaanay waxaan helayaa fursad ka badan fursadii hore ilaahayna quraankiisa wuxuu sheegay wuxuu fa'tabir yaa ulil absar yani dhulka socda oo waxaan ku wari wax hela marka waxa la yiraahdaa mid kale oo jirtaayo waxa la yiraahdaa ilmu dalat almu'min aqoonta ma ilmigu waxa weeyaan wax ka lumay weeyaan qofka muslimka ay tahayna inuu raadsado marka inaad dalka ka timaado dalka la timaado aqoon baadho oo wax kale raadsato oo fursado kale ayaan ku soo ka faa'iideysto dadka kale fursadaha ay bixinayaan good ma sha Allah mid kalena waa jirtaayo qofku hadduu mid intuu xirayo waa laga yaabaa inuu waayo oo kale marka inuu qofku maaragtay xareeyo jaamacado kala duwan ama fursado kala duwan si mid uu maaragtay exactly oo markaas uu helo marka taas aan ku darabe anigu waxaan xareeyay in ka badan de qiyaas kareemka malaha 500 oo qorshe noqonaya insha Allah sanad kasta waxay qorsheysnaan jiray ugu yaraan ilaa 10 qorshe in xareeyo oo si consecutive ay xareysnaan jiray wajifrinku kamid aha baan afrikaanka kamid aha waxa kamid aha ku kalo Ethiopian African Excellence la yiraahdo oo arrimaha biyaha iyo xaq shaqeeya marka baan afrikaanka iyo labadaba من لو صدح جربان حري إثيوبيان كا جاهد على صواب حسا كان لوح بحسا جاهد على الجيريا يا بحسا مركب بين أفريقيا قريبتي سبية هي كلام تشينج كا أنت بدان كاسنا كشقية وحن حرين شري كو خلاص كنا تركي بولسلاري وحن حرين شري دار كان ولكن قريبتي جرمال وحن حرين شري اللهم صل على محمد أدو بدناية إلى تون وهي كبدان بهاين قصة كتفان حرين شيء ما شاء الله لكن صبركم يكون علمتنا وحيابا قف نوشي سهير كارسي وياه انت كما خسرانو معلم مدوح بان كبرتay ما شاء الله mid interview soo gaaro interview kan ku haro mid soo rajaynayo shahaadooyinkayga yiraahdaa shahaadooyinkayga wadankayga laga ma aqoonsana mid yiraahdaa programkan looguma tala galin dalkaaga waxaan ugu tala galay Afrikaanka kale maalinba wax ka baranay marka istabiskaan bartay maanta keenaynan halkan imaado aqoontan ku qaato fursadan aan helo ma sha Allah iyo talada Ilaahay ما شاء الله خالد آدم ما سنتهي الله كشرفه وحويان داودياش يمكن آدم ما سنتي رنتي ما أنتي وحنا كشكل سنة مارتي سكولرشيب كداد قيبتي سكينيا ورنتي خالد كم إذا هقولستياشي سنة كان رنتي حدنا جوجا ماركتي بكتا وحنا وشكي ماركتي برسيسكي يسدو كردون وصامري سدو كرا سكولرشيب كهدو فرني هاي إلى نوفمبر 21 marka linkiga qaybta comment aynu soo dhigay insha Allah ka faa'iideysta oo xariista wixii kale oo su'aalo hadii jiraan qaybta comment insha Allah noogu reeba insha Allah marka walaalkeen ugu soo jawaabo aad baa ma santiin waqtigan qiimaha badan intaas ku soo gabagabeynaa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh